بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo taariikhda ay tahay 19 bishii sideedaad maalin axad ah waxaa shir isugu yimid si kedis ah madaxda xisbiga SAMO waxaa laga yaabaa SAMO-da inaad xoog aad istiraadeen waa SAMO saate erigaasna waa jiraa waxay isugu yimideen ujeedadii isugu yimideen iyo hadafkii isugu yimideen waxay ku saabsan tahay sida aan loo wada socono dad islaam ahaan nahay muslim ahaan nahay waxaan ognahay bisha arafo inay maanta 8 tahay bixina ay 9 tahay marka waxaa la goostay la jeclaystay in taageerayaasha xisbiga gudaha dibadda meel kastoo ay joogaan in hambalyo loo diro laga salaamo ayaa la isugu yimid iyo wixii kale oo maaragtaa soo kordhay oo lala kulmay inaan isgaarsiino marka u horeyso aniga magacayda waa xaaji shaahid aadan khayrudoon waa xogayaha guud ee xisbiga marka hore waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka 114 quraanka cadadiisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan leeyahay waxaan ugu soo fool leh oo aan saacadaha soo socdo sugayno waa ciidii arafo hambalyaan leeyahay wixii muslim ah inay nabad ku iidaan ilaahay ugu dambi dhaafo wixii Soomaali ah meel kastoo joogaanba ilaahay ugu dambi dhaafo wixii taageerayaasha xisbiga ah guud iyo banaan meel joogaanba ilaahay ugu dambi dhaafo ilaahan aaga baryeynaa taas waa mid duco waxaan jeclahay war waa leega dambeeya madaxdii iga sareysa iga sii dambayso waxaan jeclahay inaan xogo yar adinta taabto waxaad la socotaan oo la adag inaan ku jirnay oo xisbiga ah marxaladii koowaad aan ka soo baxnay oo ahayd diiwaangelinta koowaad aan u soo gudubnay tan labaad ayadana lagama seexanin sidii ayaan weyd baa adin kula hadlay oo ahayd yaani inaan tartankayna uu noqdo asbuucan waxaan soo qabtay intaasoo qofood ayaa ballan noo waatay ahayd hadee taas waa rabnaa wixii inaga soo gaaray cid walba ay heshay inay soo gudbiso waa rabnaa waxa kale aan haddaan la ku diidin ayadana wada maqalnay kaligayna ma maqlin waxaan annaka maqalnay idinkana waa maqasheen waxaa iska jirta wax badan oo annaka aan maqlin oo na soo gaarno ogtiina iska jirto waana loo baahan yahay inaad na soo gaarsiisiin shalay oo taariikhda ay ahayd 18 bishii sideedaad anigii gudoomiyaha waxaan aadnay madaxtooyada ujeedada iyo hadafka uu aadnayna waxay ahayd yaani waxyaabo dhagahayna ku soo dhacay oo dhowr ari ah iyo waxa oo loo baahan yahay inta ka dhaxleba waa maray waxaan maqalnay yaani shir lagu qabtay Nairobi oo xisbiye loogu qabtay oo annakana aan waxba ka ogeyn qodobkaas uu ahaa kii asaga ahaa baa haddaan tagnay aan komishinkii la kulannay waxay inoo sheegeen inay jiro shirkaas laakiin qaybaha xisbiga lix ma ahayn arrimaha gudaha amniga warfaafinta inta ay arrimahaas kusayso dhan ay iskugu tagtay marka laba qofood ay ahayd yaani xisbiyada waxaa ka tagay laba xisbi ayaa meesha ka tagay labada xisbina waxay ahaayeen laba xisbi oo maaragtay xisbiyadii la ansixiyay kamid ah hadee wixii soo socdana waxay noqon doontaa saasoo kale in loo socdo wax oo idinka kaliixna leega tagay ma ahayn saasay inoogu sheegeen waxaa kaloo jirtay oo aan wax ka weydiinay 10,000 oo la yiri waa in la helaa oo macal taleefanadooda waxaan komishinka u sheegnay 10,000 in ay maaragtay tira ahaan ma adka laakiin 10,000 oo wada telefoon ah waxaad moodaa inay maaragtay meeshaas dadkii waa baadiyo xaqna waxay u leeyihiin inay codeeyaan ay wax doortaan la doorto marka nin baadiye telefoon haddii la isku xujeeyo waxaad moodaa ninka xaquuqdiisii in maaragtay yaani meel laaga dhacay xajira qaangaar waaye waa wadani waaye marka ma wadani ma waxa la dhihi karaa baan niri ninkii oo lambar telefoon haysta wadani ninkii haysan wadani ma aha macnaha masaasa komishinka asku aamiyay waa la calaamaystay
waxaa la yidhi wax jiro waaye ayadana maaragta commissionka ayaa ka doodi doono waa hordhigi doonaa waxay maaragta yacni waa wax la qaadan karo waxaa kaloo weydiinay in xafiisyo gobollada iyo degmooyinka in la rabo laga furo waxaan u sheegnay inay maaragta dadka mas-uuliyiinta ka ee gobollada iyo degmooyinka dad ixtiraam maamul haaya inay ahayn marka maadaama ay saas jirto oo dawladdu waxay magacawdiba la soo celinayo dee xisbiyadii in adinka aad warbaahinta gashaan guddiga doorashooyinka haddaad tihiin arrimaha gudaha haddaad tihiin inaad gashaan oo aad tidhaahdeen ha lala shaqeeyo wax lala qabto waa dad jiro waa dad la ansixiyey si ay maaragta yacni xafiisyadii iyo furitaankoodii iyo waxaas ay ku fududaadaan ayadana waa qaateen waxay yidhaahdeen waa sax ayadana waa kala hadli doonaa hadduu alla idmo ayakana way sheegeen waxaa jirtay oo kale oo inoo sheegeen yacni meeshaan $1,000 ah oo raaca labaad ah yacni waxaa socda warar oo Puntland oo kale ay leeyihiin 3,500 yacni diiwaangelinta yacni la qaaday xisbiyada meeshaas ka jira marka xoogo waxaad moodaa iyada nafteeda inay wax badan ay ka imaan karaan meesheedana loo deyn karo ayadana way sheegeen laakiin waxaa meesha laisku raacay oo inoo sheegeen tiradii oo taageerayaasha inaad wadatiin ee hawshaas aad sii wadatiin marka intaana waa la soo kulannay waxna fikirina waa geynay ayakana waxay isku dayi karaan inay yacni naga qanciyaan waa noo sheegeen oo ah inay madaxda hordhigi doonaan wixii kasoo baxana aan maaragta wada arki doono loona baahan yahay mar walba inaan wada shaqeyno iska warqabno sidaanoo kale wixii adinku soo dhaco aad noo keentaan annagana wixii aan ognahay adin sheegno waa loo baahan yahay waa inaan kala maqnaanin intaasna waa noo sheegeen marka intaana waxaan leenahay yacni inaan ka wada faa'iidaysano oo wixii aan soo maqalno iyo aan soo aragnana adin soo gudbino adinkana waxaad soo aragtaan iyo waxaad soo maqashaan aad noo soo gudbisiin wada shaqaynta saas ay noo ahaato ayaan rajaynaynaa marka madaxdii ayaa iga dambayso aniga warka hordhiciisanaan lahaa marka waxaan leeyahay iid wanaagsan hambalyo SAMO group hambalyo taageerayaasha xisbiga meel kastoo joogaanba hambalyo ayaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته